بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى قال الله تبارك وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم هذان لبضان خصمان لبا خصمي وي لبا دوده هيوي خصمانكو اختصموا doodeen في ربهم في دين ربهم ربigoo diinkiisii ku doodeen فالذين خصمigii كفروا كفرiyey قطعت لهم waxaa loo jarjaray ثياب dhar oo min naarin naar ah يصب waxaa la shubahayaa min فوق رؤوسهم madaxyadooda korkooda waxaa lagu shubahayaa alxamiimu biyo kulaylkoodu daran yahay yusharu waa la dhalaalinayaa bihi xamiimkaas maa fii buduunihim baa lagu dhalaalinayaa caloolahooda waxa ku jira waljuluudu baa lagu dhalaalinayaa maqaarada walahum waxay leeyihiin maqaamicu budad bay leeyihiin budad oo min xadiidin bir ah kulamaa mar kastoo araaduu ay doonaan an yakhrujuu inay baxaan minhaa naarta xaggeeda ay ka baxaan min gammin liajli gammin murugo darteedna ay uga baxaan uciiduu waa la celinayaa fiihaa naarta lagu celinayaa waxaana loo oranayaa waduuquu dhadhamiya cadaabalxariiqi cadaabkii wax gubahayay dhadhamiya ilaahay jalla wacalaa wuxuu ka soo waramay kooxaha kala duwan ee mu'miniinta iyo yuhuudda iyo nasaarada iyo saabi'iinta iyo majuusta iyo waladiina ashrakuu in allaha yafsilu baynahum yowma alqiyaamati in maalinta qiyaame la kala faslinayo oo xukumkay leeyihiin la kala siinayo ayagiiba halkan ilaahay jalla wacalaa wuxuu ku tilmaamayaa inay yihiin khasmaani lixdii guruub in aladiina aamanuu meelgee inta kaleetana alkufru calaa millatin waaxidatin weeye gaalo waa isku diina meelgee markaasay waxay yihiin laba khasmi oo ilaahay jalla wacalaa isku haysta diinka isku haysta ilaahay jiritaankiisa isku haysta sifaadka iyo tilmaamaha ilaahay isku haysta wahaakada markaasaa ilaahay kala xukumaya kuwii kaafiriinta habaa la hor bilaabay saddex cuquubo oo waaweyn baa ilaahay dul saaray markaasuu leeyahy ilaahay jalla wacalaa haadaani labadaan waa in aladiina aamanuu iyo inta kale shanta kaloo wada jira maxay tahay waladiina haaduu والنصارى iyo wasaabiina walmajuusa walladina ashrakuu oo isku mid ah iyo in alladina aamanuu labadaasi khasmaani laba guruuboo doodahayo ikhtasamuu waa doodeen fii rabbihim bay ku doodeen fii diini rabbihim rabbigoo diinkiisi bay isku qabsadeen waa la kala xukumayaa in allaha yafsilu baynahum ilaahay soomuuna oran waa kan fasligii فالذين خصمigii كفروا كفرiyey gruubkii كفروا كفرiyey قضعت لهم waxaa loo googooyey ثiyaabun dhar oo min naarin ah waxaa loo jarjarhayaa dhar naara adiga markaad meel dharka lagu talo timaadid oo aad rabtid inaad labisatid soo dharka laguma jaro cabir inta la qaato soo laguguma jimeeyo dhirirkaaga iyo ballarkaaga iyo maryo naaraha saasoo kale loogu jimeynaya loo googoynaya maryo naar ah baa loo googoynaya qudicat lahum waxaa loo jarjarahayaa thiyaabun dhar oo min naarin ah qofba intii la eg kii dhirir badan kii gaaban kii ballaaran kii caataa maryo la eg baa loo jaraya taas waa ciqaab kan labaad yusabu waa la shubayaa min fowqi ru'uusihim madaxyadooda korkooda alxamiibu waa lagu shubaya meesha dhaladaha waxaa looga bilaabayaa biyo kulaylka ka gaaray heerkii ugu dambeeyey yusabu min fowqi ru'uusihim waxaa lagu shubayaa alxamiimu biyo kulayl badan markii lagu shubo maxaa dhacaya yusharu waa la dhalaalinayaa bihi biyaha kulul
maa fii buduunihim calolahooda waxa ku jira lagu dhalaalinaya mindhicirka iyo uurku jirkoo dhan baa sidaa u dhalaalaya iyo waljuluudu maqaarada kore baa isla dhalaalaya waa laba cuquubo middan saddexaad walahum waxay leeyihiin maqaamicu budad bay leeyihiin budad oo min xadiidin bir ah ulahan madaxa buurbuuran oo xoogga badan oo weliba haddana xadiid ka samaysan oo bani aadam uusan qaadi karin inuu u dulqaato iska dhaafo uusan qaadi karin kullamaa mar kastoo araaduu ay doonaan an yakhrujuu inay baxaan minhaa naarta ay ka baxaan min ghammin murugo darteed ay uga baxaan ta u adkaysan waayaan oo ku dhibaatoodaan uciiduu fiiha waa lagu celinaya budadkaasaa lagu garaacaya kolkaasna waxaa loo leeyahay waduuquu dhadhamiya cadaabalxariiqi cadaabkii wax gubahayana dhadhamiya saddexdaa ciqaab baa kuwaas ilaahay ku xukumay fariiqaas waa kaas kullamaa araaduu an yakhrujuu maxaa laga wadaa culamada qaar baa waxay leeyihiin nimankaana naar ka bixid uma suurtowdee iskuma dayi karaanbe waxaa laga wadaa naartu markay soo tuurto holaca naarta markuu inta sidii hirkiioo kala qaado oo soo tuuro oo ay afka u soo dhowaadaan baa madaxa lagu dhifanaya ee ayagu khuruuj inay doonaan iyo waxaas ma ka suurtowdo culamada qaar baa le khuruujka waxaa laga wadaa naarta holaceeda baa sidii hirkii soo qaadaya markaasuu meesha u koraysa keenaya markaasaa la garaacaya uma inay soo baxaan baa rabaan baa laleeyahy madaxa laga tumaya waxaa loogu jawaabayaana waduuquu dhadhamiya cadaabalxariiqi kii cadaabkii wax gubayay dhadhamiya gruubkii kalena waa kan ilaahay wuxuu leeyahay in allaha ilaahay yudkhilu waa gelinaya aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay asaalixaati acmaal wanaagsan jannaatin jannooyin baa ilaahay gelinaya jannaadkoo tajriya ay soconayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaal yuxallowna waa la qurxinayaa fiihaa jannaadka dhexdooda min asaawira jijimo ayaa lagu qurxinayaa asaawirtaasoo min dahabin dahab ah wa lu'lu'an baa lagu qurxinayaa luul ama min dahabin wa lu'lu'in ah min dahabin lagu cadfo wa lu'lu'in ah wa libaasuhum labiskooda oo fiihaa jannaadka dhexdooda ahaadana xariirun wey wahuduu waa la hanuuniyey markay adduunyada joogeen ila dayibi mid wanaagsan oo min alqowli abaa loo hanuuniyey towxiidka lagu hanuuniyey kuwaan fariiqaani waa fariiqii dooda ku guulaystay wahuduu waa la hanuuniyey ila dayibi wax wanaagsan baa loo hanuuniyo min alqowli ah wahuduu waa la hanuuniyey ilaa siraadilxamiidi jidkii la mahadinayey baa lagu hanuuniyey ama ilaa siraadilxamiidi ilaahay la mahadinayey waddadiisii baa lagu hanuuniyey markay adduunyo joogeen bay waddo wanaagsan qaadeen saasay ku mutaysteen ina aladiina wixii kafaruu kufriyey oo wayasuduuna reebahayey dadka can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ka reebahayey walmasjidilxaraamina ka reebahayey alladii masjidulxaraamkoo jacalnaahu linnaasi dadka aan u yeelnay sawaa'an xaalada ay yihiin kuwo siman alcaakifu midka negi fiihi masjidkaa ku negi iyo walbaadii midka meel kale ka yimid kuwa kaafiriinta ah ee waddada ilaahay subxaanahu watacaala dadka ka hor istaagaya masjidulxaraamkii aan dadka u sinnay oo qofka degan iyo qofka meel kale ka yimid ay u sinaayeenna dadka ka hor istaagaya innadii khabarkeedii waa la iska daayay waxaa la bilaabay war cusub oo shardi ah waman yurid qofkii doona fiihi masjidulxaraamka dhexdiisa biilxaadin qofkii la doona leexasho bidulmina xaaluu ku dheehan yahay nudiqhu qofkaa waxaan dhadhansiinaynaa min cadaabin cadaab xaggiis baan ka dhadhansiinaynaa cadaabku aliimin xanuujinaya nudiqhudan baa laga qaadanayaa khabarkii in aladiina kafaruu wuxuu ka warramayaa ilaahi jalla wacalaa kuwii nabiga calayhi salaatu wasalaam u diiday sanadkii 7 ee hijrada sanadkii 6 ee hijrada xudaybiya u diiday nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada inay kacbada soo galaan oo ay cumraystaan kolkaasuu ilaahay wuxuu leeyahay in aladiina kuwii kafaruu kufriyey oo wayasuduuna hor istaagahayey can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa yani daacada ilaahay waa addukhulu fi lislaam islaamnimada in la galay diidan yihiin dayib walmasjidilxaraamina hor istaagahayo u diidahaya in la galo masjidulxaraamku miyaa la kala xigay maya alladii masjidulxaraamkoo jacalnaahu linnaasi dadka aan u yeelnay sawaa'an xaalada ay siman yihiin alcaakifu midka negi fiihi masaajidka ku negi oo degan iyo walbaadi midka meel kale ka yimid masaajidkii ay u sinaayeen kuwa dadka u diidaya
khabarku wuxuu noqonayaa nudiiquhum min cadaabin aliim nudiiquhu xagga laga daali oo tusaysa nudiiquhum waan dhansiinaynaa min cadaabin aliim waman yurid qofkii doona fiihi masjidka biilxaadin qofkii la doona iilasho oo xaqa ka iisho masaajidka ama xaramka oo dhan baaba loo jeeda dhexdiisa qofkii damca inuu ilxaad ku sameeyo ka ilaahay wuxuu u ballan qaaday ciqaab weyn marka hadda meesha tagtid goobtaas xaj u tag umra u tag wax kale u tagee inaad wax dulmiye samaysid iska ilaali waa kaas xaqul aadami xaqullaahi dambi inaad samaysid iska dam beydka dhexdiisa xaramka dhexdiisa aad ilxaad xaq ka leexasho aad samaysid ilaahay wuxuu ballan qaaday nudiqhu waxaan dhansiinaynaa min cadaabin aliim waa ka marka xajka u tagtid haddii waxyaabo kale iyo dana kale iyo hawlo kale aan fiicnayn meesha la gashid waciidkan baa ku yaala waman yurid qofkii doona fiihi masjidu xaraamka dhexdiisa biilxaadin qofkii la doona leexasho bidulmina xaaluu ku dheehan yahay isagoo daalim ah nudiqhu waxaan dhadhansiinaynaa min cadaabin cadaab xaggiis baan ka dhadhansiinaynaa cadaabku aliimin xanuujinaya waid waqti ka sheekee nabiyow bawa'naa aan dejinnay liibraahiima ibraahim aan dejinnay makaanalbeyti beytka oo kacbada makaankiisii kolkaan ibraahim dejinnay ka sheekee oo waqulnaa aan u nidhi allaa tushrik bii ha ila wadaajin aniga shay-an shay ha ila wadaajin wadahir beytii beydkaygana daahiri litaa'ifiina kuwa dawaafaya u daahiri iyo walqaa'imiina kuwa taagan iyo warukaci kuwa rukuucsan assujuudi ee sujuudsan waadin naadi fi nnaasi dadka dhexdiisa bilxaji ku naadi ya'tuuka way kuu imaanayaan rijaalan xaalada ayuun kuwa lugaynaya wacalaa kulli daamirin mid boglaalan kulligeed xaalada ay saaran yihiinna waa kuu imaanayaan kullu daamirkoo ya'tiina imaanaya min kulli fajin waddo kasta ka imaanaya fajigoo camiiqin fog ilaahay jalla wacalaa wuxuu leeyahy waid bawa'naa waid waqti nabiyow ka sheekee nimankan reer quraysh oo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta u diidaya masjidulxaraamka baa waxaa la leeyahay aabbahood nebiyullaahi ibraahim ayaa masaajidkan ilaahay jalla wacalaa u diray oo dhisay amaradan iyo dardaarankan baana ilaahay siiyey haddii marka aabba sida ay u jecel yihiin nabi ibraahim oo ay u leeyihiin diinkiisii baa haysanaa ay dhab ka tahay wixii lagala dardaarmay masaajidkan ha ka daayeen yaa ilaahay loogu shariig yeelin dadka daa'ifiinta iyo qaa'imiinta iyo rukacda yaa loo diid haddaa dhab tahay inaad nabi ibraahim jeceshihiin diintiisina aad ku jidhaan amarka ilaahay siiyey nabi ibraahim waa ka waid waqti ka sheekee nabiyow bawa'naa aan dejinnay liibraahiima makaanalbeyti aan dejinnay beydka makaankiisii markaa beydkii ma dhisna laakiin hore u jiri jiray wey meeshii uu ahaan jiray baan hadda dejinnay beydka hore u jiri jiray waa kaas waa ka oranaya nabi ibraahim laftiisu rabbi innii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarcin he cinda beytika almuxarami weli muusa dhisna isagu laakiin beydku waa jiray hore buu u jiray duufaantii nabi nuux iyo waxaasuu ku indiraasoo ku baaba'ay kolkaan dejinnay liibraahiima makaanalbeyti oo waqulnaa aan u nidhi allaa tushrik bii ha ila wadaajin aniga shay-an shay wadahir beytii beydkayga daahiri oo sanamyada iyo qashinka iyo wasaqda ka daahiri lidaa'ifiina u daahiri kuwa dawaafaya iyo walqaa'imiina kuwa taagan ee salaada u taagan iyo warukaci kuwa rukuucsan rukac assujuudi ee sujuudsan macnaha waa musalliinta iyo daa'ifiinta inta ku tukanaysa iyo inta dawaafaysa iyo inta ku ictikaafaysa beydka ilaahay u nadiifi waadin haddana naadi fi nnaasi dadka dhexdiisa bilxaji ku naadi yaatuuka waa kuu imaanayaan rijaalan xaalayiin kuwa lugaynaya wacalaa kulli daamirinna xaalay saaran yihiin bay kuu imaanayaan mid bog laalan kulligeed ama geel ha ahaato ama faras ha ahaatee neef maxaan ku dhaha waddo dheer ku yimid oo safarkii ku soo daalay ee saa u galoolmay iyagoo saaran markii saa la yidhi naadi buu wuxuu yidhi ilaahu aniga codkaygu xaggee gaarayaa buu yidhi adiga wuxuu yidhi naadaa lagaa rabaa aniga gaarsiinta iskale waxba kaama khuseeyaan buur dheer buu inta fuulay buu dadka u yeeray dadow ilaahay beyd buu idii dhisaye ilaahay ajiiba oo beydkiisa xajiya buu waxaa la yidhahdaa qof kasta oo labayka yidhi oo ajiibay maantaas weeye waxa soo xajinaya qof kasta oo maanta ajiibay naadadaa nabi ibraahim ajiibay baa aan soo xajinaya
haddayna ajiibtay in kale allah yaa og isma ogid adig ya'tuuka ha kuu yimaadeena rijaalan xaalada ay yihiin kuwa lugaynaya wa calaa kulli daamirinna xaalay saaran yihiin mid bog laalan kulligeed kullu daamirkoo ya'tiina imaanaya min kulli fajin wada kasta xaggeed ka imaanaya fajigoo camiiqin fog wada kastoo gundheer bay ka imaanayaan maxay u imaanayaan liyashhaduu inay xaadiraan oo goobjoog u noqdaan manaafica manfacayaal manaaficdoo lahum iyagoo u sugnaatay wayadkuruu ayna xusaan ismallaahi ilaahay magaciisa fii ayaamin ay ku xusaan maalmo dhexdood maalmahoo macluumaatin la yaqaano calaa maa kii korkiisana ay ku xusaan rasaqahum alla uu ku arsuqay oo min bahiimati lancaami nicmoolayda bahiimadeeda fakuluu cuna minhaa bahiimatlancaamkii ka cuna wa adcimuu quudiya albaa'isa kii baasaystay baa'iskii alfaqiira faqiirka ahaa uma deedna liyaqduu ha zuuliyeen tafathahum wasakhdooda walyuufuu ha oofiyeen nuduurahum nadaryaalkooda walyatawafuu ha dawaafeen bilbeyti beytkii alcatiiqi ee qadiimka ahaa wuxuu leey ilaahi jala wacalaa waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka way ku imaanayaan maxay u imaanayaan liyashhaduu inay xaadiraan manaafica manfacayaal oo lahum ayaga u sugnaatay meeshaa markay yimaadaan manaafic fara badan bay ka helayaan oo ay ka mid tahay cibaadada lagu cibaadaysanayo halkaas oo lagu tukanayo ay ka mid tahay ictikaafka ay ka mid tahay xajka acmaashiisa faraha badan oo kala duwan ay ka mid tahay in maxaanku dhahay ganacsi iyo waxyaalo kaloo wanaagsan ay kala kulmaan iyo cilada kaloo ay u imaanayaanna waxay tahay wayadkuru smallaahi ilaahay magaciisana inay xusaan fii ayaamin maalmo dhexdood ilaahay magaciisa ay ku xusaan maalmahoo macluumaatin la yaqaano calaa maa shay korkiis ilaahay magaciisa ay ku xusaan calaa maa shay korkiis ilaahay magaciisa ay ku xusaan rasaqahum ilaahay uu ku arsuqay oo min bahiimati lancaami nicmoolayda bahiimadeeda maalmahaas macluumaadka waa yowmunaxriga maanta tobnaad iyo saddexda maalmooda ayaamu tashriiqa oo udxiyada iyo hadiyooyinka iyo maalmaha la gowracayo maalmahaas inay wixii ilaahay ku arsuqay oo min bahiimati lancaami ah inay magaca ilaahay ku xusaan oo bismi illaahi allahu akbar ay ku gowracaan allahuma minka wa ilayka saas ay yidhaahdaan oo ilaahay ay ku xusaan oo kibaarta iyo halka ay ku wadaan saasay u imaanayaan wayadkuru smallaahina ay xusaan calaa maa shay korkii ay ku xusaan rasaqahumullah fii ayaamin maalmo dhexdood maalmahoo macluumaatin la yaqaano calaa maa shay korkii ay magaca alla ku xusaan rasaqahum ilaahay uu ku arsuqayo min bahiimati lancaami ah bahiimada wax kasta oo maxaan ku raha afar qoblaa baa la yidhahdaa marka afar qobloo dhan maahanoo hadda fardihii iyo baqashii iyo kuma jiraane waa an nicmoolayda keliya waa geeli iyo loodii iyo arigii saasaa bahiimada loogu idaafinaya ancaamta waa kaas fakuluu cuna buu yidhi ilaahi jala wacalaa minhaa ancaamta xaggeeda ka cuna hadiyadaas aad gowracdeen haddaysan wax idinku waajibe ayna ahayn oo kuwa aan nadartay aysan ahayn oo kuwa nusuq dartiis kugu waajibe aysan ahayn ka cuna xaggeeda wa adcimuu quudiya albaa'isa kan baasku ku dhacay oo baasaystay baa'iskii alfaqiira ee faqiirka ahaa marka hadiyadii gowracdaan waa maalintii tobnaade uma liyaqduu ha zuuliyeen tafathahum wasakdoodii maxaa yeele qofku waxaa dhici karta muddo dheer inuu muxrim ahaa waagii hore weliba waxaa dhici karta in la soo xiran jiray qofku 20 bil ka hor xajka inuu soo xiran jiray intaas marka uusan ciddi iska jarayn tin uusan maxaan ku rahaa iska xiirayn udug uusan marsanayn markii maantaas la gaaro uma liyaqduu ha zuuliyeen tafathahum wasakdoodii walyuufuu nuduurahum nadaryaalkoodiina ha oofiyeen wixii ay nadreen oo ay u nadreen kacbada hadiyooyin hadday yihiin hadday wax kale ha oofiyeen walyadawafuu ha dawaafeen bilbeyti alcatiiqi beytkii qadiimka ahaa dawaafkii dawaaf rugniga ahaa oo maalintaa tobnaad gelayay oo dawaaful ifaadada la oran jirana ha dawaafeen buu ilaahi jala wacala bilbeyti ha dawaafeen beytkii alcatiiqi ee qadiimka ahaa dalika alamru arrinku dalika adiga kaas wey waman yucadim qofkii weyneeya xurumaatillaahi ilaahay xurumaadkiisa fahuwa tacdiimkaas baa khayrun lahu u khayr badan cinda rabbihi rabbigii agtiisa wauxilad lakum waxaa laydii xalaaleeyey alancaamu nicmooleydii ilaa maa shay maahane yutlaan la akrinayo calaykum korkiina lagu akrinayo ee fajtanibuu ka dheeraada arrijsa qurunka min alawthaanina xaaluu ku bayaansan yahay
wajtanibuu ka dheeraada qowla zuuri beenta qowlkeedana ka dheeraada xunafaa'a xaalada aad tihiin kuwa ilaahay kuwa iilanaya oo diinta xaqa u iilanaya lilaahi ilaahay dartii ugu iilanaya غayra mushrik wa aan shariik yeelayn bihi billahi aan u shariik yeelayn waman yushrik qofkii shariik yeela billahi ilaahay u shariik yeela فكأنما وحو لمد يحي خر اسغو كسو دحاي من السماء سمدا او فتخطفه اي كلا دفايسو الضير شمبيره او امس تهوي به اي لا هوبانيسو الريح ضبيشو في مكان اي كلا هوبانيسو مكان كو صحيق فوق وعلى الله جل وعلا ومن يعظم قفكي وينيه حرمات الله الهي حرميالكيس حجكي با لغا هدليه حرماتك حجku waxa weeye waxyaabaha muharramatul ihraamka ah oo qofku markuu xajka xirmado ilaahay u diiday oo uu ka xarimay ba xurumaadka kamida inuu weyneeyo oo sidii ilaahay uu amray inuu uga haro oo u joojiyo waxa kamida xurumaadka waajibaadkii xajka ilaahay kugu waajib yeelay inaad la timaadid waxa kamida xurumaadka meelaha ilaahay xurmeeyay iyo waqtiyada ilaahay xurmeeyay oo aad joogtid inaad xurmaysid sida masjidul xaraamka mash'arul xaraamka bisha xurmada leh beledka xurmada leh xaramka oo dhan intaas oo dhan waxay soo galayaan waman yu'azzim hurumatillah haday muharramatul ihram ki tahay haday waajibaadkii xajka tahay haday amaakinta iyo awqaada xurmada la ay tahay oo bisha iyo beledka iyo masjidka iyo mash'arul xaraamka ay kamid yihiin qofkii inta weyneeyay ilaahay sidii uu u weyneeya فهو تعظيم كاسبا خير له قفك او خير بدن عند ربي اكتيس وحلي إلهي جل وعلا وحلت لكم وحا ليدي حلالي الأنعام النعموليدة إلا ما شيء ما هنه يطلع الله أخرنا عليكم كركينا لغو أخرنا آيات حرمت عليكم الميتة وحا إذكو أخرنا يسموه إيه نعموليدة انت إذا كلا ليدي حلالي سيدي جاهلي سوائبتي إيا بحائرتي إيا حوامدي إيا وحا سمجران فاجتنبوا كدير هذا الرجس قرنك من الأوثان حالو كبيان سنة سنم يضا واجتنبوا قول الزور بين قول كذا ناس كثيره وما حنفاء حالاتين كل حنايا ودين حق اقول حنايا لله اله درتي اقول حنايا غير مشركين حالاتين كو ان شريك يلين به بالله اله ان شريك يلين وما يشرك بالله قفك الهي او شريك يلا فكانما وحو لمديه يعني عقاب كيس نينكاس فيري وحو لمديه خر اسو كسو دحاي من السماء samada asagoo laga soo daayay oo fatakhdafuhu dayru shimbiru ay kala dafanayaan qof samada ka soo dhacay oo shimbir bacad goosatay buu la mid yahay qofka ilaahay u shariigiyay oo ama se tahwii bihi riixu dabaysho ay kula hoobatay fi makaanin sahiiqin meel fog cirka inta ka soo dhacay dabayl ay ku tuurtay meel aan dhaweyn waa kaas saasoo la mid yahay qofka ilaahay u shariigiyay dalika al-amru dalika arinku sidaa weey waman yu'azzim qofkii weyneeya شعائر الله شعائر الدين الله إله الدين كيسا أستعميهيسا فإنها تعظيم كاسي من تقوى القلوب قلوب التقوى ذي كأهات لكم واحد لذيهن فيها شعائرتا منافعوبات كل ذي منفعيال إلى أجل انت لقارو أجلكم مصمم لما قعابي ثم محلها ماشا يكو حلالو بيسو لقو قورعيا إلى البيت عند البيت وآهادي بيتك العتيق قديم كأها markala alla wuxuu leeyahay man yu'azzim qofkii weyneeya sha'air Allah sha'airtan halkan waxa looga jeedaa hadiyooyinka loo jeeda hadiyooyinka kaabada loo soo hadiyeeyo oo geela iyo looda iyo waxyaabaha oo nicmoolayda oo beedka Ilaahay loo soo hadiyeeyo qofkii weyneeya weyneynta maxaa laga wadaa in aad dooratid neefba neefku ka weyn yahay neefba neefku ka qurux badan yahay neefba neefku maxaan ku ka qaalisan yahay inaad dooratid beedka Ilaahay waxa uu hadiyeynaysa ay noqdaan wax aad u qiimo badan fa innaha ta'dhimkaas weyneyntaas sha'airtaas oo hadiyooyinka la weyneeya min taqwal qulubi bay ka ahaatay qofka oo bixinaya taqwo qalbigiisa ka soo fushay bay daliil u tahay qalbigiisa taqwada ku jira bay daliil u tahay markuu xoolaha neefka ugu weyn neefka ugu qaalisan neefka ugu taagtaagan uu soo qabanayo min taqwal qulubi cabsi qalbi aan cabsi ku jirin waxaan ma soo qaban karo lakum waxad leedihiin fiha sha'airta manaafic baad ku leedihiin ila ajal muddo intii laga gaaro ajalku musamman la magacaabay hadiyada kacbada u soo hadiyeysay inta ay ka soo gaarayso xilliga laga gowracayo manaafic baad ku leedihiin maxay tahay manaaficdaasi hadaad u baahato waa soo fuulaysa anaad ka maalaysa
xaajooyinkaaga iyo danahaaga kalaad ku soo gudanaysaa wahaakada ilaa ajalin inta laga soo gaaro uma maxilluhaa halka ay ku xalaaloobayso oo lagu gowracayaana ila albeyti cinda albeyti waa kacbada beytka agtiisa beytka xaramka hadda looga jeeda uma maxilluhaa waa kaas makaano xalaaloobideeda oo lagu gowracayo ila albeyti cinda albeyti waa beytkii agtiisa beytkii alcatiiqi ee qadiimka ahaa kacbada waxaa laga wadaa xaramka dhan wuxuu leeyahay ilaahay jalla wacala walikulli ummatin ummad kasta jacalnaa waxaan u yeelnay mansakan gowrac liyadkuruu inay xusaan ismallaahi ilaahay magaciisa calaa maakii ay ku xusaan rasaqahum alla uu ku arsaqo min bahiimati lancaami ah waa ka bahiimada oo nicmooleyda ah fa ilaahukum ilaahiynu hadda marka ilaahun weeye ilaahu waaxidun mid ah falahu ilaaha aslimuu isku dhiiba wabashir nabiyo u bishaaree almukhbitiina kuwa khushuuca ilaahay jalla wacalaa u khushuuca kuwa u bishaare aladiina mukhbitiinto idaa dukira allaahu allah haddii la xuso wajilad quluubuhum quluubtooda ay cabsanayso wasaabiriina sabrahaya calaa maa asaabahum waxaa ku dhacayna ku sabrahaya walmuqiimi salaati salaadana oogahaya wa mimaa rasaqnaahum waxaan ku arsuqnay xaggoodana yunfiquuna wax ka bixinaya wuxuu leeyahy ilaahi subxaanahu watacaala walikulli ummatin ummad kasta jacalnaa waxaan u yeelnay mansakan gowrac adinka keligin ma aha in hadiyooyinkan iyo udxiyooyinkan iyo waxaan la gowracayaa waxa adinka idinku qaasa ma aha ummad walbo ummadihii idinka horreeyey ka mid a waxay lahayd gowrac iyo dhiig daadin u qaasa bay lahayd waqtigu ha idin kala duwanaado meeluhu hadarama ha idin kala duwanaadeen laakiin walikulli ummatin jacalnaa mansakan gowrac baan u samaynay waa kaas makaan lagu fasirana wuu jiraa makaanu gowrac meel ay xoolo hadiyadooda ku gowracaan maxaan ugu samaynay liyadkuruu inay xusaan ismallaahi ilaahay magaciisa calaa maa shay korkiis inay ku xusaan rasaqahum ilaahay uu ku arsuqay oo min bahiimati lancaami bahiimada nicmooleyda ah bahiimada nicmooleyda ah iska daa bahiimada nicmooleyda ah calaa maa kii inay ku xusaan ilaahay rasaqahum alla uu ku arsuqayo min bahiimati lancaami bahiimada nicmooleyda ah waa kaas oo bismi illaahi allahu akbar allahuma minka wa ilayka idaa markay gowracayaan fa ilaahukum marka ilaahaynu ilaahun waaxidun ilaah adinkana mansanka idiin yeelay ayagana u yeelay isku ilaah baa tihiine falahu ilaaha aslimu u hogaansama ubashir nabiyo u bishaaree almukhbitiina kuwa khaashiciinta oo ilaahay u khushuuca u bishaaree oo haddana tilmaamahan leh aladiina mukhbitiinto idaa dukira allaahu allah haddii la xuso wajilad quluubuhum qulubtoodu ay cabsato wasaabiriina kuwa sabra ah calaa maa asaabahum ku sabra mukhbitiinto wasaabiriina kuwa sabra ah calaa maa asaabahum waxaan xaggoodana yunfiquuna wax ka bixinaya wuxuu leeyahy ilaahi subxaanahu watacaala walikulli umma jacalnaa waxaan u yeelnay mansakan gowrac adinka keligin ma aha in hadiyooyinkan iyo udxiyooyinkan iyo waxaan la gowracayaa adinka idinku qaasa ma aha ummad walbo ummadihii idinka horreeyey ka mid a waxay lahayd gowrac iyo dhiig daadin u qaasa waqtigu ha idin kala duwanaado meeluhu hadarama ha idin kala duwanaadeen laakiin walikulli ummatin jacalnaa mansakan gowrac baan u samaynay waa kaas makaan lagu fasirana wuu jiraa makaanu gowrac meel ay xoolo hadiyadooda ku gowracaan maxaan ugu samaynay liyadkuruu inay xusaan ismallaahi ilaahay magaciisa calaa maa shay korkiis inay ku xusaan rasaqahum ilaahay uu ku arsuqay oo min bahiimati lancaami bahiimada nicmooleyda ah bahiimada nicmooleyda calaa maa kii inay ku xusaan ilaahay rasaqahum alla uu ku arsuqayo min bahiimati lancaami bahiimada nicmooleyda ah waa kaas oo bismi illaahi allahu akbar allahuma minka wa ilayka idaa markay gowracayaan fa ilaahukum marka ilaahaynu ilaahun waaxidun ilaah adinkana mansanka idiin yeelay ayagana u yeelay isku ilaah baa tihiine falahu ilaaha aslimu ubashir nabiyo u bishaaree almukhbitiina kuwa khaashiciinta oo ilaahay u khushuuca u bishaaree oo haddana tilmaamahan leh aladiina mukhbitiinto idaa dukira allaahu allah haddii la xuso wajilad quluubuhum qulubtoodu ay cabsato wasaabiriina kuwa sabra ah calaa maa asaabahum ku sabra mukhbitiinto wasaabiriina kuwa sabra ah calaa maa asaabahum ku sabra waxa ku dhaca oo shadaa'ida walmuqiimi salaati ah salaada kuwa ooga ah wa mimaa rasaqnaahum waxaan ku arsuqnay xaggoodana yunfiquuna wax ka bixiya walbudna halihii geel jacalnaahaa lakum
adinkaan idinkaga yeelnay min shacaa'irillaahi ilaahay diinkiisa shacaa'irtiisa iyo astaamihiisaan idinkaga dhignay lakum waxaad leedihiin fiihaa budnigaas khayrun baad ku leedihiin fadkuruu xusa ismallaahi ilaahay magaciisa calayhaa korkeeda ku xusa sawaafa xaalay mid saddex ku taagan faidaa wajabad hadday dhacdo junuubuhaa dhinacyadeeda fakuluu minhaa ka cuna waadcimuu quudiya alqaanica midka saa'ilka midka qaanica oo aan kadalika sidaas baan sakharnaahaa lakum idinkugu sakhirnay halahaas lacallakum tashkuruuna ilaahay inaad ku shukrisaan darteed wuxuu leey ilaahay jalla wacalaa walbudna waa jamcu badanatin waa neefka oo maxaan ku dhahay geel ah oo aad iyo aad u weyn oo jirkiisu uu dakhmiga yahay loodana culimada qaar baa waa soo gelaya badanada geela kaliya ma waa kaas jacalnaahaa lakum waxaan idinkaga yeelnay min shacaa'irillah min shacaa'iri diinillahi ilaahay diinkiisa astaamihiisaan idinkaga yeel qofku wuu salaamaynaya hasha uu xajka u soo wado hadiyada uu ka dhigayo oo beydka ilaahay uu soo hadiyeynayo calaamad buu soo yeelaya surku wax u soo gelinaya kuruska dhinaciisa buu maxaan ku iraahay waranka jag uga siinaya dhiig buu ka keenaya khalaas neefkaasi waa neef hadiyada oo kacbada mahayo asaga qofka watana la taaba mahayo lakum fiihaa khayrun baad ku leedihiin inaan laydin taaban baa ka mid a markaa shacaa'irta geela saasa wadaan ya inaan laydi taaban asaga aan la dhicin adiga ilaahay hadiyad u wadaata lakum waxaad leedihiin fiihaa buduntaas budnigaas waxaad ku leedihiin khayru adduunyada khayr baad ku leedihiin aakhirana khayr oo ajar ah fadkuruu xusa ismallaahi ilaahay magaciisa tacaala kor ahaaye markaa gowracaysaan sawaafa xaalay tahay mid saddex ku taagan saddex lugood mid sintay xaalada ay tahay waa ka afarteeda adin mid baa la laabahayaa waa kaas jeeniga oo midigta ah bidixda ah baa la laabahaya la xiraya iyadoo taaganna waa la biraynaya lama fariisiyo geela marka la biraynayo waxa dhuunta gaaban baa la fariisiyayo oo la legdaa looda iyo ariga iyo geela istaagga lagu gowraca waa kaasoo jeenigu u laaban yahay bidixda faidaa wajabat hadday dhacdo junuubuhaa dhinacyadeeda markaa rubadda ku dhifatay hadda dhacday babbayba dhahaysa ma joogi karto faidaa wajabad hadday dhacdo junuubuhaa dhinacyadeedu fakuluu minhaa kolkaas ka cuna waadcimuu quudiya alqaanica midka aan waxba weydiisanaynee qanacsan oo faqiirka laakiin oo dhibaataysan kaa quudiya walmuctarana quudiya midka su-aasha u bambaxayo oo wax isii dhahaya ilaahay wuxuu leeyahy kadaalika sidaas baan sakharnaahaa lakum idinkugu sakhirnay neefka intaa la eg hal qof baa iska hoggaansanaya oo weliba yar haddana iska gowracanaya waa layli ilaahay uu idiin layliyey buu leeyahy ilaahay jalla wacalaa kadaalika sidaas baan sakharnaahaa lakum idinkugu laylinay ee idinku maydna awoodeen lacallakum tashkuruuna ilaahay inaad ku shukrisaan darteed baan idinkugu laylinay lan yanaala llaaha ilaahay gaari mahayo hilbahooda walaa dimaa'uhaa dhiigyaalkeeduna ma gaarayaan walaakin yanaaluhu ilaahay waxaa gaaraya attaqwaa oo minkum xaggiinna ka ahaatay kadaalika sidaas baa sakharahaa lakum ilaahay uu idinkugu layliyey litukabirullaaha alla inaad weynaysaan calaa maa hadaakum hanuuninta uu idin hanuuniyey darteed inaad ilaahay u weynaysaan wabashir nabiga u bishaaray almuxsiniina kuwa camalkooda wanaajiyey lan yanaala llaaha buu leeyahy ilaahay jalla wacalaa ilaahay ma gaarayo luxuumuhaa budnigaas halahaas hilbahoodu ilaahay ma gaarayaan walaa dimaa'uhaana ilaahay gaari maa walaakin yanaaluhu taqwa maxaa laga wadaa jaahiligii baa waxay samayn jireen hadiyadaani waxay ahayd wax qadiima oo carabtu ay taqiinay oo kacbada ay u soo hadiyeyn jireen markay keenaan oo xoolaha qalaan bay waxay ku wari jireen kacbada darbigeeda waxay ku wari jireen dhiiggayga carada ku dhayi jireen waxaasay cibaado ka dhigi jireen kaasa ilaahay wuxuu leeyahay war hilibkan iyo dhiiggan waxba ilaahay ku falimayee taqwada iyo ikhlaaska adinka qalbigiina ka soo baxay weeye wax laydinka aqbalay meesha rabta hilibkan ku war adugu meesha rabta ku war waa kaas lan yanaala llaaha ilaahay luxuumuhaa walaa dimaa'uhaa midna gaari mahayo walaakin yanaaluhu ilaahay attaqwaa baa gaarahaya minkum xaal taqwadu xaggiina uu ka ahaaday taqwada iyo macnaha waxaa laga wadaa ikhlaaska iyo niyada wanaagsan baa ilaahay kaa ajar siinaya ee hilibkan aa meesha ku waraysid ajarku maaha
وصنم يضي وحا أثار ساريسان كذلك سيداسبا سخرها لكم حلاهاس إلهي إذا كقول لي لماذا لتكبروا الله إلهي إن أدوك بارتان وأدوينيسان على ما هداكم هنوننتي سدرتين وإياكم أذنك أود هنونيو على ما هداكم على هدايته إياكم هنوننت إذا هنونية درتين وبشر نبي وبشارات المحسنين كوا عمل كذا وناجية ثواب آخره ونكسر وبشارات يدافعوا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.